السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. لما أنت كاجي عيدا وضاء سود هذا أن waxaan maanta jeclaysiin in la wadaago keegaasan u sameeyay fiidiyowgiisa dhammaystiran. marka insha Allah ku soo dhawaada channel-kana dee like, subscribe waa xagiina dee soo dhawaada insha Allah. waa kan wuxuu ka samaysnaa iyo isagii faahfaahsan iyo arrimihiisa iyo dhan isku dhani. marka maanta keegaas baan la wadaagayaa, ila soo sameeya, ila soo tijaabiya. hadaad samaysan sawirka ila soo share garaya. Snapchat-kayga Somi1, Instagram-kayga Somi1. dee maanta waa kaas Eid Mubarak, cake is here today. keega ciida waa kaas maanta, soo dhawaada. waa kan wuxuu ka koobnaa keega. marka hore sponge keega in sameynaynaa, marka dambena dee waan decorate gareynaynaa. marka hore intani waa intuu keega aan ka dubayay. halkan waxaa igu jira 4 midho ah beed. halkan waxaa igu jirta mulqacad vanilla ah, 250 gram oo sonkora. halkan waxaa igu jira 250 gram oo ah butter. halkan waxaa igu jira 325 gram oo ah daqiiqdu waa self-raising flour. haddii kalena waxaad ku darsan kartaa 2 mulqacadood oo baking powder hadda daqiiq isticmaalaysid plain flour. halkan waxaan soo dhigtay tiinkan ku dubayay. tiinkan ku dubayay waa 8 inch butter ban mariyay, wax kale kuma sameynin waayo kan hoosta uu kala furmaa, markaas uma baahnin in aan warqad ama wax kale ku dhexrido. markaas kaasan ku dubay insha Allah. hadaad kan oo kale haysan waxaad sameyn kartaa warqad yar oo leeg badu. marka hore waxaan isku darayaa butterka iyo sonkorta si fiican ma iskugu qoosheeyay ilaa adigu 5 minutes. markuu si fiican u qoshmo uu cadaado butterka iyo sonkortu ayaan beedka ku darsanayaa. hadda si fiican u qoshidid keega waxaan ka caawinaysaa inuu keegu soo weynaado. keeguna wuxuu noqonayaa sponge, marka waa inaad si fiican u qoshtid. marka beedka 4 midhood ku dartid marba xabad si fiican u qoshtid. beedka waxa mid xabad ugu daray marba xabad si aanay hadii xabad ku jirto aanay la raacin amba dalka beedka aanu ka qaadan karsamin. marka hadii xabad ku jirto starka soo iskareebisa aduu dalka beedka ka raaco waad iskareebi kartaa dad marba xabad. laakiin hadaad wixii dhan ku dul dartid dee iska qaribmaya waxiiba. markaan ku sii rashadaya daqiiqda markaan ku daro sonkortii butterkii beedkii isku qasmaya 1 minute ku daray daqiiqdii ay isdhexmeeyaan daqiiqdan shaandheynaya. intaan ku daray sonkortii waan ka baxtinaya. markaa waxaan soo qaadanaya mulqacad hareerahan wixii ka caawinaysa si fiican uga soo wada goynaysa keegu inuu sponge noqdo. waxay kale ka caawinaysaa hadduu dee daqiiqda wax burburan ku jiro way ka haraysaa. kaas waxa burburan hadhow keega wuxuu ku sameeyaa marka dhexda ka kala goysid daldalool buu u sameeyaa keega. markaas si keega waanu hadhow dhexda uga daldaloo shamin waa in iska shaandheysid. at the same time hawu gelinaya hawadaas keega waxay ka dhigtaa bush. markaas saas bay muhiim u tahay in la shaandheeyo keega. halkan waxaa igu jira 4 mulqacadood oo ah caano. halkan waxaa igu jira mulqacad vanilla. marka intaasan ku darsanayaa. intaanan ku darin mulqacadan dhex marinaya si aanay daqiiqdii hareeraha wixii ugu dhagdhaga uga hadhin. waa inaad isdhex gelisid. wax badan uma baahna inaad qooshtid. marka hore waxaad si fiican iskugu sii qooshisaa butterka iyo sonkorta. dabeetana beedkana waa inaad si fiican ugu qastid. laakiin daqiiqda markaad ku darsid qooshid badan uma baahna. 1 minute waan ku shiday. 1 minute kadibna caanihii waxaan ku daray vanilladii. dee waan ku shidayaa khalaas. khalaas waan ka baktiyey.
وين أنا حوق نوش لعسنين حوق نوات كين وين صلاص سكراعي مركز ساو شبتيت waxaan sameynaa ovenkan galinayaa ovenka wuxuu igu jirayaa saacad waxaan ugu buuxinayaa timerka 1 hour waxaan anu geeyay 160 ma rabo inaan dab badan ku shido qasadad xoog dabka ugu dalacdid markiiba dushu ka casaanaya waxa arkaysaa isagii dushiina ka casaaday dhaxdiina qaydin tahay markaas ovenkana waan sii shitay ovenku waa inuu si fiican kugu sii kullaado ovenku markuu si fiican kugu kullaado wax ka caawin keega inaanu ka dilaacin dhexda iyo keega inuu si fiican oo islaag uu u soo bislaado onu u kala hor bislaanin marka ovenka waa inaad markasta sii kulleysatid intaanad keega gelinin marka insha Allah de keega ciida waxaynu sameynaynaa yaa laga yaabo waxaan sameynayaa ovenka galinay ovenku uu kulul yahay waan idin sheegay 160 ma uu geystay marka insha Allah 1 hour buu ku jirayaa 1 hour ka bacdi baan ka soo saari doonaa keegi waa kan waan ka soo saaray ovenkii waa ready marka waxaan sameynayaa horta creamkan sameynayaa creamku intaan ka kooban yahay creamkan isticmaalaya waa kaas double creamkaas isticmaala double creamka kana ugu fiican soo aad rabtid inaad keega fresh cream ku samaysatid kaas waa fiican marka anigu markasta kaasaan isticmaalaa halkan waxay ku jirtaa vanilla halkan waxay ku jirtaa sonkor waa 2 mulqaacadood iyo badh creamkan sonkor badan ma qaato xabada hal mulqaacad ba ku filan hadaad rabtid in yar mulqaacad iyo badh xabadii ku darsan kartaa hadii kalena xabad hadaad sonkor badan jeceshahayna xabad mulqaacad iyo badh baad u baahan tahay mulqaacad iyo badh sonkora ayaad xabadiiba ku darsan markaa laban isticmaalaya halkan waxay ku jirtaa 3 waliba yar ba ka dhimaado 3 mulqaacadood sonkor isticmaali kartaa halkan waxay ku jira cheese kan waa cheese laga sameeyo tiramisu marka la sameeyo cheese la isticmaalo muscafani cheese weeyaan cheese kan 2 mulqaacadood baan kaga daraya wax wadan kuma darsanayo laakiin hadda wuxuu ka caawinayaa inuu creamku ku noqdo inuu ku fadhiisto oo uu ka biyoobin markaas in yar baan cheese kaas kaga daraa wax badan kuma darayo waa 2 mulqaacadood markaas sidaas aad samayn kartaa haddana cheese kan haysanin tiramisu lagu sameeyo cheese ka caadiga baad ku darsan kartaa inkastoo cheese ka caadiga milix leeyahay uu cheese kaas tiramisu lagu sameeyo oo milix lahayn oo kaas ku fiican yahay haddana ka haysanin waxaad isticmaali kartaa ani soft cheese baad ka isticmaali kartaa marka uu ku adkeynaya creamku si fiican kugu fadhiisanaya marka hore waxaan sameynayaa creamkan qooshiya creamka iyo waxaan isku darsanayaa sonkorta iyo vanilaha marka intaasaan isku shidayaa mashiinka xoog uguma shidayo hadii xoog loo shido double creamka uu kala baxaa waxaad arkaysaa subag uu soo dul mara marka ayar baan shidayaa just number 2 kan u geynayaa marka in badan buu iska shidnaanayaa markuu soo adkaado ayaan cheese-ka ku daraya marka hore waxaan isku darsanayaa double creamka sonkorta iyo vanilaha intaasaan mashiinka isku gelinayaan isku shidayaa intaas marka adkaatana waxaan ku darsanayaa soft cheese-ka waxaan ku darsanayaa soft cheese-kii in yar buu soo yar adkaaday laakiin wali si fiican uma fadhiisan markaas sidaas markuu yahay baad ku darsanaysaa cheese-ka haddii kale hadhow cheese-ku ka burburnaanaya yaan xoog u fadhiisanayn markuu xoog wali u adkaanin ayaad ku daraysaa cheese-ka marka waxaan ku darsanayaa imka soft cheese-kii marka soft cheese ku daro waan isku shidayaa ilaa intuu iga adkaanayo oo sidoo cheese kaas oo kale yahay uu noqonayo mulqaacada marka saas dhulka ku tiraado waa inaan dhulka kaaga dhacayn hadii kale hadhow ka biyoobaya intuu saa cheese kaas yahay oo kala ka noqonayo mashiinkan ku deynaya waana ka naaqusaya markii hore laban ku shiday laakiin marka number 1 baan u geynayaa in hadad mashiinka gacanta haysatidna sa wakaas u fadhiistay wax kale kuma darin sonkortii iyo double creamkii iyo cheese-kii weeyaan
sonkorta dadka badan waxay isticmaalaan icing sugar-ka. Icing sugar-ku way biyeysaa double cream-ka markaad sameynaysid. Markaas icing sugar laguma daro sonkorta caadiga amba custard sugar ama sonkorta caadiga baad isticmaali kartaa. Marka waxaan sameynayaa dee khalaas cream-kii waa ready. Keegii wakaas waan ka soo saaray oven-kii uu qaboobay. anigu tiinkayga hoosta laga soo saari karaa markaad dee kuma dhegayo ayr buu ka soo baxaa. laakiin tiinkaaga haddaan sidaas uga soo baxayn waxaad samayn kartaa waan kuu sheegay mar hore warqad baad hoosta uga dhigi kartaa si aanu kaaga dhigin hoosta. laakiin tiinkan waa easy ayr buu kaaga soo baxayaa keegiyana waxba kaa noqon. marka hore hoostan kasoo jaraya si aanu hoosta dee aanay qayb ugu hadhin. waxaad samaysaa haddaad bahashan kala haysatid haddii kalena waa caadi midiidada isticmaali kartaa. marka waxaan sameynayaa waxaan ka dhigayaa 3 qaybood baan ka dhigayaa. bahashan baan isticmaalayaa bahashan keega level lagaga dhigaa. midida waad ku jarjari kartaa laakiin bahashan ku caawinaysa inaanu kaa kala dheerdheeraan si hadhow markaas ku dul saarsaar si dee aanu kaaga kala xumaanin. Amazon baan ka dalbaday. markaas halkaas baad ka dalban kartaa se waxay ku caawinaysaa inay keegii si yaro fiican oo slaagda u jarjarto. markaas 3 baan u kala goynayaa. hadhow markaad keegii gogoysid dee creamkiina dee saas buu kuu noqonayaa kaama kala dheerdheeraanayo kaama kala xumaanayo. marka bahashan way fiican tahay. haddii kale waa caadi midida ku goyn kartaa. markaad midida ku goynaysid waa inaad iska ilaalisid inaanu keegu dhaqaaqin oo aad gacantaada u dhaqaajisid. insha Allah video kale ayaan tusi doonaa sida midida lagu gogoyo laakiin kan baa ka iisisan. haddana taa haysanin waa caadi mididaad ku gogosan kartaa. marka 3daasan ka dhigayaa. xabadan waxaan sameynayaa waxaan iska qaadayaa intaas sare ee brown-ka noqotay. kaas hadhow keega markaad gogoysid waxa kuu soo baxaysaa iyadii brown. markaad keega cream ku sameynaysid waxa fiican inaad dusha iska qaadid. xitaa dadka qaar hareeraha iska dhilaan ba anigu badanka hareeraha kama dhilo. kaas keega dad dab naaqosa ku sameysay imka waxaan ku duubay 160. markaas dee kaama gubanayo just yaro dee kalar fiican buu kuu noqonaysa. you don't need inaad hareeraha ka xoqdid. haddaad jecesha hareeraha waa iska xoqi kartaa. kaas hareeraha markaad ka xoqdid creamka markaad marinaysid easy bay kuu noqonaysaa oo hareeruhu kuma arkaysid. laakiin marka kugu horeysa tahay xitaa dusha uma baahnid inaad ka dhishid. haddii kale waxan baa kugu soo kaakacaya se try inaad marka hore ku bilowdid adiguna waxba iska dhilin. hadhow talo waxaad sameyn kartaa marka dee la qabsatid xagga doontid baad ka dhilasaa. it's really easy. kaagaagii baad sameysanaysaa haddaad ilmahaaga birthday leeyahay haddaad dee ciid party everything. ciyaalka believe me way jecel yihiin waxay hooyadood samaysay. they're gonna feel so proud especially that intaad samaysid iskuulka geysid maanta dhan way ku celcelinayaan everyone hooyadii waa samaysay keega hooyadii keegay samaysaa. bas sidaas ma sameeyey. marka insha Allah imka creamkii uman diyaarsanayaa. xaga ma ku decorate garaynayaa. bahalkan baan ku decorate garaynayaa. bahalkan wuxuu kaa caawinayaa keega inaad marba dhinacaad rabtid aad ka mari kartid. markaas bahalkan baan dul dhigtay. haddaad kan haysan blade-kaaga aad ku samaysan kartaa qasab maaha laakiin it's really nice easy buu kaaga dhigaya inaad keega xagad rabtid aad ka samaysid. marka hore waxaan sameynaya in yaro cream aan soo qaadaya xaga maan marinayaa si aanu hadhow keega uga dhaqdhaqaaqin meeshiisa. marka waxaan sameynaya dee xabadii ugu hoose tan xaggii hoose ba xagga hoose marasa. waxaan sameynaa waxaan ku darayaa dee creamkii saas baad u sameynaysaa. kolba jeexii kala dul dhigaysaa. baashan midida yarna dee waa lagu sameeyaa palette knife baa la yidhaahdaa. online-kaad ka dalbani kartaa. sadku isku xidhan baa Amazon-ka iibiyaa. so it's really nice easy bay kaaga dhigaysaa inaad samaysid. and then the second one creamka intan dheeraadka waa caadi ogaan baan u dheeraysiiyey because hadhow ma raba inaan hareeraha kaga soo xidho. so
markaad more cream ku dartid ba easy bay ku noqonaysaa hadii kale keegaas jajabkiisa oo dhan baa dusha soo maray marka keegii creamkaas ka darsamaya keega waa inaad creamku badsid si aanu keegu kugu soo jajabin laakiin creamkan extra dusha maraya hadhow toolo baad ku hagaajinaysaa marka maaha wax khasaaraya waxaas ha ka yaabina haysoran creamkiiba xaggan baa lagu khasaariyay xabadii ugu dambeysay kaas sidii baad samaynaysaa they were easy wallahi it's very easy keegaagii adiga samaystay walibana waxaan rabaa inaan arko more cakes ciid la sameeyay yeah inshallah wixii aad fahmi weydaan waad soo weydiin kartaan Instagram-kayga asumi1 Snapchat-kayga asumi1 I love to help that's why in waqtigayga u gelinayo and time-kayga u gelinayo waxaan rabaa inaan caawiyo intaan caawin karo marka sidaas baan creamkii dheeraadka wakaas sidaas buu igu wada xidhay waxaan sameynayaa in kale aan ku sii sameynayaa oo meelaha yar banaana keegu ka muuqdo maadaama keegu baarti yahay waa in aanu keega in yar keegii ka soo muuqanin dadka qaar ma jeclaa cream badan markaas dadkaas oo kale waxay ku dhahdaan creamka naga badin isaga iyaga dalbaday inay keeg bilaadara qaataan markaas oo kale waan ka yarayaa laakiin caadi ahaan keega waa inuu wada qarsoomo waa inaana keeg laga arag meesha haddii kale keegidee keeg sax noqon maayo bahalkan yar baan isticmaalayaa wuxuu leeyahay afafkaas gafeedho kala dhinacna way waaweyn tahay maanta xaggan yar baan isticmaalayaa wuxuu ii sameynayaa zigzag buu ii sameynayaa marka dadka ay ku cusub oo kale in hore keega u sameyn jirin way dhibataa inay de smooth ka dhigaan haddaad rabtid tan baad isticmaali kartaa tan smooth bay ka dhigaysaa waa sidaas anigu tan baan isticmaalaa laakiin tan quruxna way kugu sameynaysaa at the same time uma baahnid marka waxaad sameynaysaa halka dambe saas ugaga soo bilaabaysaa saasaad ugu soo wareejinaysaa ilaa halkaad ka bilowda aad geysid ma istaajinaysid marka intii creamka dheeraadka hadna way kaa qaadaysaa dee waxaad iskaga ceshanaysaa jabcadaadii haddana mar kalead ku sameynaysaa ilaa halkaad ka bilowday aad ku gaadhsiinaysaa dee keegii sidaas baabuu ku dhan yahay that easy yeah keegaagii ciidana adigaa samaystay waxaan sameynaya xagga sarena iyadu maan ku sameynayaa haddaad rabtidna midid bahasha ma kuu sameynaysa xagga sare oo xaggaas intaad kasoo bilowdid dib u celinaysaa dan inta dheeraadka abaad iska qaadaysaa koonahaad kasoo bilaabaysaa inta dheeraadka masi kusii wadwadisid haddii kale way kaaga sawirmaysaa mar quraatad saaranaysaa waad iska celinaysaa keegii intaas uu ku dhan yahay waxaan sameynayaa halkan baan iska nadiifinayaa intaanan dhammaynin inta dheeraadka baad iska qaadaysaa midida waad ku nadiifin kartaa intaas markaas ka nadiifisid waxaan sameynayaa buluug baan ka dhigayaa keeg oo dhan blue kama dhigayo but decoration blue yaan u sameynayaa xaggan iyo xaggan baan kaga sameynayaa ciid mubaarakna waan ku qorayaa marka waxaan isticmaalayaa food colorkan ku darayaa labadan af baan isticmaalayaa afkan falawraan ku dulsa sameynayaa afka saas u eg baan isticmaalayaa afkan yarna waa number 3 waxaan ku qorayaa ciid mubaaraka marka wax lagu qorayo afkaas baa la geliyaa marka waxaan sameynaa marka hore kalarkan ku darsanaya kalarka wax qoyan iyo waxaas inaad dhex gelisid maaha findicilkaas bad intaad rabtid kaga soo qaadaysa marka xabada mar walba dhex gelinaysa waa inaad iska tuurtid mar dambe kuma celinaysid haddii kale wuu xumaanaya cream badan ma haysto intaasun baa igu filan khalaas kan biinkan iskaga ridaya mar dambe ma isticmaalayo creamka already uu qoshmayso maaha marka xoog uma qoshaysid haddii kale uu kaa kala baxaya ayarun baad sidaas ilaa intaad arkaysid inuu kalarkii uu si wada bedelay marba ayar baad sidaas u walaaqaysaa xoog ha walaaqin haddii kale uu kaa kala gogo'aya
sidaas fad marba ayar ilaa intuu wada buluug noqonayo oo meelna de color yar oo gooni fadhiin isku wada kaanaysa san walaaqaya hadad xoog markuu aad saas walaaqdid waxaad arkaysaa isagoo biyoobay oo haddana kala fadhiistay oo meelna buurbunaan sadarkasa meelna biyo noqonayso markaas ayar bad saas walaaqaysaa ilaa intuu colorku wada buluug noqonayo uu si fiican colorku bedelmayo marka waxaan sameynayaa bacihi baan ku shubanayaa waan tusi doonaa saasaan u diyaarsaday kana creamkii baan ku shubtay kana inta yar baan ku shubtay waxaan rabaa in ciid mubaarak ku qoro marka hore ciid mubaarak bahay noo dambeysay kaageen decorate gareynayna floweradaasaan ku sameynayaa marka hore oo tuujinaysaa barashar badan bad xagga dambe kaga soo qabanaysaa dan waa sii deynaysaa ilaa inta dee ka gaadhsiinsid koonaha kale kaagii sidaasuu ku dhan yahay halkaasna ciid mubaarak baan ku qorayaa afkan yar baan ugu qorayaa ciid mubaarak dee kaagii ciidda maanta ma isla sameynay mise islamaynaan sameyn laakiin aniga kaagan maaha kaagii ciidda kan qofkan hadiyad ugu geynayaa laakiin idinku dee kaagiina ciidda waa inaad sameysaan sawirkii la soo sheergareeya instagramkayga asumi1 snapchatkayga asumi1 marka lahaa snapchatkayga asumi1 kaagiiban asumi1 ku qori gaaray xagan iska lahaa ciid mubaarak ku qor mubaaraktiiba asumi aniga kusii wadaan saarkay markaa dee bal keega ay la soo sameeya keegana dad doontan asumi ku qora haddana waxaan sameynayaa koonaha sidii kale umad u sameynaysaa ilaa intaad koonaha kale ka gaarsiinaysid kaagina imkaan ka masaxay asumidii waxaan kusoo qoray ciid mubaarak anigii baaba yaabay markaan soo arkay kaagi anigoo markaad hadlaysid waxna isleeday qor maskaxdu dee laba ma noqonaysa dhinacuun bay u socotay wixii laga sheekeynayay bay mooday in lagu qoriyo dee maxay ka gaadhay aniga dib u masaxay waa manage gareeyay kaagi saas buu ku dhan yahay ciid mubaarak kaagi wakaas